waxaan u joognay in mudaharaadkii nabadeed inay hortaagaan darteed sidaan isu bedeshay marka aad baad u mahadsantihiin ciidanka waxaan leenahay ka jooga arrinkan haddii damiir aad leedihiin ninkaa dalka ka badbaadiya oo gurmadka lagu badbaadinaya dowladnimada iyo jiritaanka dalkeenna inuu badbaado qayb ka noqda amarka qaldan iska diida shacabka Soomaaliyeed waxaan leenahay balaayo daba la qabtay leedahay af la qabtay leedahay daba la qabtay malaha ninka dalka badbaadiya aad baad u mahadsantihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مروة فرتيلتي سانتا. والله نبغى قبل. داود يا دقال دايرو صحمية مركز سمني ولا سنة دقال توس أيو كسو قاضي سيدا الشيء يوم مدحوينه ومدحوينها مدحوينة كيسوونا ماضي حسن الشيخ محمود سرطان وجدان دربي كو آدن وحا كجرو مدحوينه ورئيس سومالي الشيخ شريف شي أحمد oo daqiiqada ka hor sheegay hal baalooto haddii uu dagaalamayo saraakiishana uga digay in aysan soo weerarin waxa uuna ku goodiyey inuusan ahayn nin cabsanaya xaaladda waxay u muuqataa mid aad u adag dad kasta ama qof kasta oo halkan jooga ayaa waxa uu galay meel naftiisa kaliya uu ku ilaashan karo amaba uu kugu kalsoon yahay xaaladuna waa ay adag wardegdega weerar ayaa hadda ku socday guriga musharax madaxweyne xasan cali khayre sida ilo looga qaateen oo amni sheegayaan madaxweyne xasan sheekh ayaa hay'adaha sharciga iyo kuwa ammaanka daawadayaal sida hadda aad maqlaysaan xabadahaasi waxay ku duqaayeen guriga madaxweynihii hore Sheekh Shariif oo hadda goordhow halkan warbaahinta kula hadlayay isla markaana uu khudbad ka si toos ah waxa halkan uga soconaya يارو ما قصع يا دوتا حمر أمكان guriga madaxweynihii hore Soomaaliya Shariif Sheikh Ahmed ayaan ku sugan waa 5 saac كويتون أنا تونكي أفريقيا تو صادق عن مدينة وجدة قصتي كفيري صادق عقدني رفنك اللي قدام برافو وكان هذا ولا مسعتها والله بقى سوى قربتها هدا سعتها هدا يبكو سعتها به والله بقى لا فوها موسيقى عمرو يرى محبضها هو قربتها عمر انا نتاشي ولا داير ما قربتها مش واحد انك عمرو بيري باشا مر هدا لو هذه دغه ما لادين هدا سعتها حبده هدا سعتها حبده لكن او دولة برلمان وايد صار دولة وحكم ده كده عمل نطبع محمدها I don't know say معارض فكرية لكن هذه دقيقة أنت يكون صعبت مدحتوية مدحتوية دقيان هذه مدحتوية دقيان ولسكو كدقلة هاي ما كان I don't know say وصل دقالوية صعبتك الدقالة دي ستاتك يعني واو الدقالة عادية بسم الله ورطة كده تقولي والله أتشيل حبت ويسعتها موتا أسعى قرهد ويكسعتها أبتو ما هيرو وكوين على ساعة على خير كسعتها حاجة ما حصلت شيء أولا كسعتها أبتي سلطة ما يعاود ويسعتها حبت ولا الشيخ شريف ولا عبد الرحمن عبد الشكور ولا سوى قبنا هو أدعو يا داعي ما تطلع كوين على ساعة على خير كسعتها أما لأني فلان ما حصلت ما حصلت شيء مايا أنا الدولة تاجر سنة ويحب معارضة على صوت ما تطلع كي كلا الجلالة وبيلا عارفين عنك يا رحمة الله والله ثم والله حساس culus ayaa ka soo xaafada aaga madnaayo ee xaafada guriga uu degan yahay Sheekh Shariif xasaastaasi oo la isku adeegsanayo hub noocyadiisa kala duwan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda kala badbaadiyo xaalad aad ay u cakiran tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda kala badbaadiyo inta waa inta ilaahay ummadda Soomaaliyeed halka qof oo qaxayso waa yaabaysa Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda kala qabta ayaan leenahay u duceeyo saaxiibayaal
السبنة يوحى صحابة ولا ضد كل عمايانو ديان ولا أمي ملح ما كل أمي درب كل إلى ضد كان ما سد war degdeg ah rasaas aan inaba caadi ahayn ayaa hadda ka socota guriga degmada Howlwadaag uu ka degan yahay ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre dawladda Soomaaliya ayaa caawa go'aan ku gaartay in xubnaha mucaaradka si weyn loola dagaalamo oo xabadu aanay istaagin ilaa nimankaas laga saaro goobaha ay degeen waxaa jira war aan la xaqiijin oo soo baxaya oo sheegaya in dawladdu rabto inay waaran soo qabasho ay u jarto xubnaha mucaaradka gaar ahaan Xasan Cali Khayre iyo madaxweyne Sheekh Shariif Sheekh Axmed waarankaas oo la amray ciidamada amnigu inay soo qabtaan isla markaana lagu eedeynayo dagaal iyo inay sameeyeen khalkhalgelin amni xaaladdu ma sahlano rasaas xoog leh ayaa ka socota hadda guriga ra'iisul wasaare Khayre runtii daqiiqad kastana waa la filan karaa inuu sii saa'ido dagaalku wixii soo kordhay hadda waxbaa idin sheega dagaalka ma socdaa dowladda xashaq waa laga adkaana sababta looga adkaana kuu sheega dowladda shacabkiyaa nacay dowladdu shacab ma wadato hadday shacab wadato waxbay ahaan lahayd laakiin hadda waxay muuqata dowlad shacab ma wadato dadkii baa ka soo horjeedo ma ogi wax tuuraye dowladda shacabkiyaa ka soo horjeedo fiirsada marka dowladdu hadda dhibka haysta waxaa weeye dadkii baa nacay marka askariga guri walba laga soo toogana askari soo ku dagaalami karaa dadku waa hubaysan yihiin haddii guri kasta meesha gardaaqada laga toogto askari dowladda see buu u dagaalami karaa ma dagaalami karaan waa been dhimasho unbaa la siyaasanayaa midda kale xasan sheekhna waa qabiil sheekh shariifna waa qabiil xasan cali khayre waa qabiil roobna waa qabiil askartuna waa qabiil soo haddii qabiil la tago soo askari kasta qabiilkiisa aadi maayo soo baabuurtii goosasho caadi mayso baabuur kasta lala goosan maayo maxal gaafay kaliya askarta loo maleeyay maaha askartu waa asla kaliya maaha anu su'aal baa qaba marka su'aal dawladdu maxay ku dagaalamaysaa iyadu xashiq maxay muxuu rabaa inuu ku dagaalamo muhiimadiisu waa maxay isaga fiirso adiga hadda fiirso waxaad maqli doontaa baabuur goosatay arki doontaa baabuurtu waa goosanaya ogow askartu waa goosanaysa ogow hadalkaas iga qora soomaali qabiilka wuxuu noo gala maxaa kaa galay aniga daahir cali sooba wax bartay intaa weriyaha ahaa haddii qabiilka waa goosanaya qof haraya male صح واي وهذا الرز عدام عن جرين الصومال نما إن نعنع وجوري لكن قف كستو قصرية من هنا ارتأب قالها وحوي لا شخص شريف هالوجودلو سكستو أو محافظية حصل مركي عيالك الإنتان أو باول سكوبه أو دتك لقحيه أو شعب يكون معنا دجالك أو جريد دمان أو حولها وده هذا عقلها أصلا حال سوف في السنة مال قاعدة سويريس مركز قاعدة وكان دم قاعدة الشيخ شريف بس سياسة يحكم تعيلك وحماد سفيري هدوا بقى وده موضوع بنابح يسحب بنابح هلا بنابح قفك بنابح لا بحي كده بنابح حب بنابح لك عرصة قف جد كاس مرة يري فكر كان قبع أو كان دول حال لك بقى عرصة كي ما كتب حيت قفك يري داير سؤال ما كلتها إنه قلت لي شرع راسان كوي ما دقيقة داني في ما جو في هذا كسر بحي أثناء اللي أغسر كارت داني كهرت إلا يرم كلتها فيري وين قلت له قضية فيري قف كير وبنابحة أو كير بناك عماها وحو شعب يستعرك لي والبنابح ما تريد وأنت ضد وياه هذه وحبطكم بالله قفكم بصار إنه كل دقيقة ولا حبطكم ونفتوا هذه حبطكم بالله ما إلا بنابح لا أرتها بنابح صح
جد كمر يا عين لكن أنا ولي مارك مدحويني بنابح كبقاي ما بنابح هو بقى عشان بنابح جرا شيء dadku ma ogtahay meel loo sheegay ma ogta qofkan banaanbaxan qabana ma ku yiraahdo banaanbax saxiix aan sarnay laakiin ani wax laga sheegay fiiri madaxweyne Soomaaliyeed ma ka baqan naag gabadhiina bajaajla biimaana oo xire oo saacadin leeyahay saacadin bajaaj oo tiri ani jahan noo cadaalad fal oo iska harash xiran maxay u xiraahay maxaa ceebta inta lagu geey markay waxay u muuqataa baabuurta ku hayna ciidamo si gaar u tababaran ciidamadu waa qabiil ciidamada si gaar u tababaran waa qabiil laazimna $200 askari qaata qabiilkiisu raaca goosasha bilaabanayso صح وقفنا أنا hadalka Sheekh Shariif oo aaba askariga aniga la dagaalamay wuxuu uga dagaalamaa ma mushaar la siiyaa mise dawladnimo uga dagaalamaa bointigaas meel loo dhaafan lahayn باش ملح ونمر إلهي كلا قول شيء وحور راعيي هذا ما كان حارد دونو يري هذا أنا مي والله أكشي وعاو برلمانك ده كان كلا دحق الجري والله جل إيو شريف هذا صعب بعض والله ما مسحوا هذا madaxweyne waxaad ku jirto ma ahin dhiiqa ku jirta ka bax madaxweyne xasan dhiiqada ka bax adduunyo kuma haysatisaan akhiran kuma haysatis sharafna ku gaari maysid alladii la dhinta ciidamada qaranka waxaan leeyahay waa ayaan darud madaxweyne idin أنا قلت لك في